jilaanimadiisii ugu horeysay wuxuu ka bilaabay filimkan aynu daawano habboon indhaba caadi ma aha maasha Allah. Cabdiweli waa u taqaanin Jamaal TikTok-tan ku arkayay gabar soo dhigtay sawirka xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo isagaba oo tiri Jamaal gabdhihii jeclaayo Jamaal gabar baa hanataye ka jeesta wax saas marana bay soo dhigtay laakiin muhiimadu inta macaan la daawanaya way kooban tahay. marka waxaan leeyahay muuqaalka noo soo kordhiya daqiiqadaha noo soo badiya aad iyo aad ba masantihiin team Astaan TV madax ku kasaaday ayaad saarantihiin. Cabdulla waxaan leeyahay soo dhawow welcome. هلا سبب كله همودينه سبب كله وي همودينه سنتادي هبندن وكسيح وايو سيدهاي غويسه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ku xidha channelkeena Sawda Amar Bashiir soo dhawaada leeyahay muhiim weeye hasmarteenina fadlan muuqaalkan hadduu idin soo gaaro like gareeya subscribe gareeya horta cadeeya idin leeyahay habeen wanaagsan waxay intahay wanaagsan waxaan rajaynayaa muuqaalkan aad barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad inta ku daawanaysaa inta ugu qaalisan weeyaan dunidana aynu saaranahay. marka soo dhawaada asxaabta qaaliga sida laga barteen muuqaalada aan soo daayo caamid kale cusub aan idin wadaa waxaan idin wadaa caawa Cabdiweli waa kuma waa ninka Cabdiweli waayo waxaad ku barateen magaciisa Jamaalna waayo waa jilaagii filimka habboon Cabdiweli taariikh yar kooban aan in ka siiyo. horta waa wiilka dhalinyarada ah wuxuu ku dhashay oo ku barbaaray waxbarashadiisa qayb libaax ka qaatay caasimadda Soomaaliya Muqdisho cadeey buu ku dhashay ku barbaaray ku bartay wax intaba sanadkii 2009 waan soo koobayaa intii horay u daawatay muuqaalka taariikhdiisa aad iyo aad ba masantihiin intaan daawana hadda ila daawada 2009 buu Itoobiya buu fanka kaga soo biiray oo ka soo galay codkiisa heeso uusan lahayn oo heesii hore buu qaaday markuu arkay codkiisa inuu maasha Allah yahayna fanka waa soo galayba jilaanimadiisii ugu horeysay wuxuu ka bilaabay filimkan aynu daawano habboon indhaba caadi ma aha maasha Allah ilaahay isha bilaadanka ka hayo iyo Cabdiweli ba inta jilasaba maasha Allah bihi laakiin aktarkii iyo aktaradu indhaba caadi ma aha qaabkooda. Cabdiweli ma aha nin single ma aha nin kaliya ma ahan waa nin xaasla ah wuxuu qabaa xaawadegan waa fanaanad kamid ah gobolada waa bari kamid ah hadhiina gobolada waa bari waagi hore dad weyn bay ahaayeen la gobolada waa bari dhalinyarada waa yeelba way isku jiraan waana hobolo soo jireena weeyaan oo mar hore ah. Cabdiweli caruur buu leeyahay xaas buu leeyahay maasha Allah fankana hadda ku soo biiray xilligan ku soo biiray jilaanimadiisa markuu soo galay dadka qaar markii soo galaya jilaanimadoosa si walba ha u hadal badnaadaane xoogaa wax ka khaldan yihiin oo babakaadaan oo khaladkoodu badan yahayo laakiin ninkan maasha Allah nin markii horeba habi ahaa buu ahaa. Cabdiweli waa u taqaanin Jamaal TikTok-tan ku arkayay gabar soo dhigtay sawirka xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo isagaba oo tiri Jamaal gabdhihii jeclaayo Jamaal gabar baa hanataye ka jeesta wax saas marana bay soo dhigtay. markaasay dhaheen horta yaa yaqaanaba horta maxay yahay horta muxuu yahay de kuwana waxay dhaheen maasha Allah allo jilaageen weeyaan adigu waa balance la wadaba ibcaadki maxaafadku labadaba waa jiray. marka Cabdiweli wallahi waa qof kalimadiisa waa loo qiraayay waa nin maasha Allah weeyaan waa actor maasha Allah weeyaan isagii awlaadiisa reerkiisa Ilaahay ha barakeeyo cadowgana ka hayaan leeyahay. filimka habboon aan soo jeesto filimka habboon inta musalsal daawanayay filimka degan
oo qisadu iska macaan tahay oo dadku habbi ka yihiin inta leekaanay ma arag. waa filin degan bulsho weyn Soomaaliyada badanna soo jiitay, inkastoo hadda ay xalqadii nagu yareeyeen oo ay nooga dhigeen marka mid maanta daawano aan haddana muddo sugno waan doormada joogta Ingiriiska joogta oo kale. hadda wiigi waxay soo daayaan dhowr baarti way soo daayaan, marka sida kuwaas oo kale hadday nooga dhigaan ducaan ugu dar lahayn. anigu waxaan ka helay inay yihiin amba xiriir ka dhaxeeyaan mooday Habboon iyo Jamaal, sida u matalayaan qaabka maamadu matalaso wiilkan saaqadka uu matalayo gabadhan Habboon sida u fiican tahay oo ay gabadhan kale ay saanta dhashay ay uga fiican tahay oo naag mas'uul tahay. gabadhan aysan ahayn naag mas'uul aysan ahayn telefonkeeda isticmaalo soo jaamacadu aysan tan kala ahayn. Habboonna ay top tahay. odaygu siduu fadhi ku dirka uu u sameeynayo wiilka yar maasha Allah waa dad tobood ah weeyaan oo inaba caadi ahayn. marka waqti dhacday weeyaan oo laga matalay qisadaasina waqti jirta weeyaan. waxaan riwaayadahan faantan aan daawanayno waqsooyin weeyaan dhacay haba dhacdee waxaa lagu kala fiican yahay oo lagu kala horeeyaa qaabka loo kala matalayo baa loo kala horeeyaa. ha loo kala horeeyee filinkan maasha Allah filin dad loo dhigo ma walahanba qaab ku hadlayo jacayl sida loo jilayo. aniga Sawdaa baaba filinka ka helay oo gabadhan iyo wiilkan kaba helayba. marka xogaa xurgufana waxay ka socotaa TikTok-tay ka socotaa xogaa xurgufa oo ay leeyihiin jawaan sida weeyaan ka saxda naag wiilaya war lama diidan kuwana waxay dhahay afar baa loo baneeyay kuwana afar baa loo baneeyay dhahan. marka filinkaas waa filin aad iyo aad u macaan top u ah Cabdiwelina taariikhdiisii intaasaan ku soo koobaya aad iyo aad u baahan yihiin. laakiin waxaan ka codsanayaa muuqaalka in laga gaarsiiyo Cabdiweli team Astaan TV in laga gaarsiiyo muuqaalkan. waan rajaynayaa aad iyo aad hambalyada halkan aan iga soo dirayaa wiliba markuu kan dhamaadana mid kale aad noo bilowdaana waan rajaynayaa kana inaad noo soo badadajisaan oo wiigi 3 xalqadood aad soo deysaan aad iyo aad baan u jeclaan lahaa muuqaaltaba oo xogaa daqiiqadahana aad xogaa ku dhisaan waayo baawur la raacayo meherad aad aadasaan gurigii intaad ku qaqabanasaan muuqaalka xogaa baa muuqaalku marka go'ayo dheeraanaya laakiin muhiimadu inta macaan la daawanaya way kooban tahay. marka waxaan leeyahay muuqaalka noo soo kordhiya daqiiqadaha noo soo badiya aad iyo aad baa masantihiin team Astaan TV halkiisa ayaa di saarantihiin. Cabdulla waxaan leeyahay soo dhawow welcome aad iyo aad baan u masan tahay muuqaalka sida noo jishay gacan furan ku soo dhawow shacabka weyn Soomaaliya shacabweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay ku bogaadinayaan xirkaagana Allah ku barakeeyo awlaada inta aad shay in ka badan Rabbi ha ku siiyo kuwa khayr qaban Ilaahay ha kaga dhigo. bye bye asxaabta qaaliga.